السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسلامتين أصحاب تقاليق دمانتين مeel kastoo adduunka ka joogtiin waa saaxiibkiin culus oo madax washkax madax barar isku days afballi waji wax kala jinni food leh aashito iyo magac walbo aad igu yeeri kartid shalay waxaan soo qoray qoraalkan hortiina ka muuqda waxaa la gareysay 3800 qofood waxaa comment gareysay 2300 waxaana share gareysay 59 dhammaantiin mahadaha ha idinka gaarto qaabka quruxda badan ee aad maaragtay uga falceliseen qoraalkaas sheekooyinkan 2300 qof ay noo soo qoreen waxaan qaadan doonaa 3 qofood oo kamid ah saddexdaas qofood shuruudaha lagu qaadan doono meesha ku qoran yihiin macnaha qofka ugu like badan ayaan iri laakiin comment ahaan ayaan ugu daray 3 qof ay ugu like badan marka 3 qofood ay ugu like badan sheekooyinkooda ay ugu like bataan ayaan halkan ka sii deyn doonaa macnaha waxay la mid tahay 3 qofood oo ugu sheekada kacsan marka anigu ma aqaan meelaha kala joogaan ma aqaano dadka ay Soomaali ka yihiin balse waa culus oo team saas darteed ayaan u soo qaatay sheekooyinkooda waa sheekooyin qosol badan saqaysayo asxaabta qaaliga ah aad baad u wada mahadsantiin dhammaantiin qaabka quruxda badan aad sheekooyinka nagu soo qorteen aan ku bilaabay Cabdiqaaliq Cilmi Cabdiqaaliq wuxuu ka mid yahay bulshada aadka noogu xiran mar walba nala socota Cabdiqaaliq Cilmi waxa uu soo qoray sheekadan waa sheeko qosol badan runtii balse intaan sheekada u guda gelin Cabdiqaaliq aan idin sheego waxa uu reaction ahaan helay Cabdiqaaliq waxa uu helay 1500 oo like ay qosol waxa isugu jiraan Cabdiqaaliq waxa uu score u dhigay culus oo team waxa uu noqday commentiga ugu horeeyay intaas oo like hela culus oo team Cabdiqaaliq waa ku hambalyeynaya waan ku baahsantahay qaabka quruxda badan ee sheekada noogu soo qortay waxaan reply u soo galay 76 in ka badan waxa uu soo qoray sheekadan mid cabtooy ah oo qamiis iyo cimaamad wato ayaa hadda ka hor masaajid soo galay markaas dad salaad dukan rabay waxay dhaheen sheekh salaada naga bixi markaasuu salaadii tujiyay markuu salaadii tujiyay ayaa qaar kamid ah dadkii waxay dhaheen ما شاء الله شيخ آد بعد أقعد معانته هاي عبتوي كلها وليبه هذا موي سقبين هدان ويسقبي لها وكسي يقعد معانا الله ارجع عررة بسم الله والله روتور شيء كذا هذه يقص لي عارفك وحوا هذا مو يسقبي وتاغي هذا ويسقبي لها يا بقدر لا وتاغي عبد الخالق ادي هذا امها سنتها تيدا كلو كوهم بلين عبد الخالق waxaan noqotay shakhsiga ugu horeeyay ee like intaan la ka hela culusow team post lagu soo qora ama video ama sawir Cabdiqaaliq waxaad ku garaacday dad fara badan ma sha Allah hambalyo hore u socayaan ku leeyahay runtii sheekadaaduna aad bay u qosol badan tahay runtii hadaan lagu xaqireynin dadkuna waxay like u saareen ayaa meesha ku jirta aad iyo aad ayaan kugu mahad celinayaa teeda kale waa ku mahadsan tahay qaabkan aad noogu soo qortay sheekada qosolka badawlaha hal saac iyo bar qoslay ku dhaal saac bar kula hada ya wixii haddaan ma aragtay wees qabilaya ka daraalay saaxiibka buu wees qabo salaadu waa ku jidiyaal oo kaafiriin buu dujiyoya waa ku salaam Cabdiqaaliq waxa kale oo maanta kaalinta labaad galay Shaafici Qarandoon in la yiraahdo Shaafici wuxuu noo soo qoray sheeko dheer oo qosol badan inta aanan sheekada u guda galin oo aanan akhrin aan idin sheego waxa uu falcelin ahaan u helay Shaafici 937 qofood ayaa ka falcelisay oo like iyo laugh iyo qosolba u saartay sheekadiisa oo aad iyo aad macnaha uga heshay 44 qofood ka badanna waxay u soo galeen reply Shaafici sheekada uu noo soo qoray waxay u dhacaysaa sida tan runtii sida tooska ah uu asaga u soo qoray uma akhrin doono qaarkood laakiin sheekada waxaan u akhrin doonaa qaab qurux badan haduu Ilaahay yiraahdo xariif baa magaalada macnaha orod ku soo galay oo pizza house tagay macnaha xariif baa magaalada inta orod ku soo galay pizza house tagay markaasuu shaah dalbaday marka maqaayadaha casriga ah shaaha sokorta lagu daro sokorta gooni ah lagu macnaha lagu keenaya kadib intuu inta qaado macnaha aad ku qaadataa inta rabta kaga darsanaysa macnaha sokorta waa lagu keenaya shaah waa lagu keenaya waxa rabto qaando ka rabta aad ku darsanaysa marka xariifka waa ka dhaxsan yahay ilbaxtuulo waaye banaanka laga yimid waxa uu siirey marka sokortan kaligeeda bal lacag ya shaahan macnaha waaba kii aad taqyiino maaragtay tuulooyinka lagu gadaayo asoo cadeys waaye iska dhaqabso usir ma baad adiga saaxiibka markay shaahiyo iska dhaqabsado iska cabi shaahi qaraarkiisu ku cabay sokorta waa ka cabsay wuxuu sir lacag kala waaye ama lagu soo jaajgareeyo usir ma baad adiga xariifki shaahiyo ka dhargay kadib kuwa ag fadhiyay oo shaah sokor ku darsaday
macnaha kuwa agtiisa fadhiyo shaha sokor ku darsaday uu arkay asagana isku lacaga laga qaaday macnaha kuwan shaha ayagoo sokor ku darsanaya wuu argay markay meesha tageen isku lacaga laga qaaday saaxiibka markaasuu yidhi kaalaya sokortu ma lacag la-aan bay ahayd macnaha markaasaa lagu yidhi haa markaasuu inta fadhiga ku laabto yidhi haye koob shaaha iyo kiilo sokora ii dhiiba walaakal ilaaba u qusli saaxiibka waxa waaye waa u siiri sokortan waxa waaye lacag waaye u dhawaada bug hore siiri marka dambe wuxuu arkay dhabar iyo shaahi iska qabsadeen qaando sokorta isaga walaaqaha shaahi iska dhakabsaayo arkay mina meesha tageen lacagta la dhiibayo waxaa la yidhahay lacagtaas wada keena hal lacagaa laga wada qaaday saaxiibkaa waa yaabi wuxuu yidhi waxay tahay sokorta ma lacag la-aanay ahayd ha marka la yidhi xanaaqa mogta lacag yar oo haysto uu yidhi haddana koob shaahi ii keetiin keena sokora ii keena jabkooba ku shubana waa maasan tahay shaafici aad iyo aadaan kaaga mahad celinaya hambalyo waxaad noqotay qofkii labaad ee ugu laygta badnaa waxaa kaloo kaalinta saddexaad galay wiil ay u qoran tahay WLL Bukhari KP macnaha waxaan u fahmay walaal Bukhari inuu ula jeedo waxa uu soo qoray sheeko qosol badan runtii inta aanan sheekada gudagelin ka hor aan idin sheego waxa uu reaction ahaan u helay ama falcelin ahaan 928 qofood ayaa ka falcelisay oo laaf iyo qosolba u saaray waxaana reply ahaan uu helay 22 qofood ka badan walaal Bukhari wuxuu noo soo qoray sheekadan waxa uu yiri naag reer mudug ah baa nin naag kale la guursaday kadib way maseertay markaas baa la weydiiyey waxaana lagu yiri heblaayoy ninkaaga naag kale kula qabaa naagta kale uu kula qaba macnaha nambarkeeda maxaa ku seef gareysay macnaha Saadiya Goomeeyay ashoonta lagula qabo nambarkeeda maxaa ku seef gareysana la yiri markaas ay ku jawaabtay macnaha kullu nafsin daa'iqatul mawt kullu nafsin daa'iqatul mawt warqabta tooriba rawaad biisiga kullu nafsin daa'iqatul mawt kula macnaha xarfaata waa balansata qoftaan ilkee ku qaadan rabtaa macnaha jidka deeka hortibaad waxa waaye hawaday ka qarar rabtaa ya wallahi sheeko qosol badan waaye walaal Bukhari waa maadsan tahay waxaad noqotay qofka saddexaad ee nasiibku u yeeshay in halkan laga akhriyo sheekadiisa aad iyo aad ayaan kaaga mahad celinayaa qaabka quruxda badan ee sheekada noogu soo qortay teeda kale hambalyo waxaad heshay like fara badan insha Allah waxaan qiyaasi doonaa inay ku noqon doonto commentigan mid aad ku faari doonto waan idin salaamo dhamaan asxaabta qaaliga waa maadsantii